Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadli doonaa hal qaab oo loo beddelo caadooyinka. Caadooyinku waa kuwo maalin walba aan samayno, ilaa heer xitaa anagoon ogeyn aan samayno. Nolosha waa caado lagu daray caado kale, wakhtiga aan soo kacayno ilaa wakhtiga aan seexanayno. Waxaa jirta oraah dhehayso farqiga u dhexeeya qofka aad tahay iyo qofka aad rabto inaad noqoto waa waxaad samayso. Haddii aad aaminsan tahay ficilada iyo waxaad samayso maalin walba inay ka yimaadaan fikirkaaga iyo go'aankaaga. Waxaa jirta daraasad ay samaysay 2006 Duke University jaamacad ku taala dalka Mareykanka. Maqaal ay ka soo saareen daraasaddaas waxaa lagu sheegay in 40% ficilada aan samayno aysan ku salaysnayn go'aan aan qaadanay, balse ay ka yimaadaan caadooyinkeena. Caadooyinka waxay saameyn weyn ku yeelan karaan noloshaada. Haddii tusaale aan u soo qaadano qiso ku dhacday nin loo yaqaano Eugene Bowley. Wuxuu ahaa 70 jir Amerikaan ah. Waxaa infekshan kaga dhacay maskaxda qaybta xasuusta. Xanuunkaas wuxuu ku sababay inuusan xasuusan karin wax walbo, laakiin wuxuu samayn karay caadooyinkii hore iyo kuwa cusubba. Sida mar dhakhtarkiisu weydiiyey gurigiisa meeshuu ku yaalo, wuxuuna ku jawaabay ma aqaano, laakiin gurigiisu wuu tagaa oo wuu yaqaanaa oo asagoo ku fikirayn wuu tagi karaa. Marka caadooyinka uma baahno in maskaxda ay xaadir tahay ama aad xasuusato waxaad samaynayso. Annagoo dhan waxaa leenahay caadooyin aan rabno inaan beddelno, sida cunidda macaanka badan, cabidda sigaarka iyo wixii la midka ah. Marka si aan u beddelno caadooyinkaas, waxaan u baahannahay inaan ogaano caadada waxay ka kooban tahay. Charles Duhigg, ninka qoray buugga The Power of Habit, habka uu isticmaalay wuxuu u kala dhigay caadada 3. Q wax kugu sababayo shayga inaad samayso, iyo routine shaygii samayntiisa, iyo reward abaalmarinta aad ka hesho. Tusaale, caajis ayaa ku qabtay subaxii oo kale, waxaad cabaysaa kafeega, kadibna waxaad dareemaysaa nashaad iyo firfircooni. Tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad beddesho cabidda kafeega, keliya waxaad beddelaysaa rutiinka. Labada kale way kuu joogayaan, Q-ga iyo rewardka, keliya waxaad beddelaysaa rutiinka. Tusaale, caajis markuu ku qabto, waxaad booskaad ka cabi jirtay kafeega waxaad cabaysaa caano si aad nashaad u dareento. Mise markuu caajisku qabto, waxaad samaynaysaa jimicsi ama exercise, kadibna waxaad dareemaysaa nashaad. Sida ciwaankan ku soo sheegnay, waa hal qaab oo loo beddelo caadooyinka. Dabcan way jiraan habab kale loo beddelo. Muuqaalkeena halkaas wuu ku egyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.